تدقيسو دad baa af Soomaaliga iska leh dadka iska leh kuma faanaan sida kaba soo qaad sida dhulbahantaha iyo ogaadeenkii daaroodka kuma faanaan Soomaaliga ma dhahan anaga af Soomaaliga iska leh ma dhahan bal waxaad nooga sheekeynaysiday Soomaaligu goorma yeesheen macnaha Soomaaliga goorma yeesheen ogaadeen iyo dhulbahanta iyo daarood macnaha goormay Soomaaliga yeesheen walidaad noola iimaanaysid inaad wax wanaajisidna waad doonaysaa Soomaaliga dhamaana saddex reer bad saro dhageyso aniga Kenya wax ku soo bartay Kenyaan baan ahay historiga Soomaaliya baan aqaanaa aqoon adigoo Kenyana sidee uga hadli kartaa Soomaaliya adigoo Kenyana macnaha adigoo Kenyana Kenya wax ku soo bartay Soomaaliya noogu macnaha Soomaaliya kaagala noogala hadli kartaa waa naga tifani Soomaali ma ihi soo ani qof Soomaali ma ihi hatta Kenyaan ahay oo Kenya aan ku soo gashay Soomaaliya qofka hargeysa wax ku bartay dhegeysananiyo qofka dhegeysanno qofka hargeysa wax ku bartay ee joogaba kaaga dhow Soomaaliya inuu ka hadlo oo amaana ama caayo laakiin adigoo Kenyaatiya oo Kenya wax ku soo bartay adiga Soomaali kama hadlo warana Kenyaan oo dhulbaanta oo Soomaaliya adigana Soomaalinimada ka xig waniyo naga dhegeyso warfiiri ayaga Somaliland historigoodan SNM uu ka soo bilaabay sheeganaya waa ceeb weeye dadka kala sheego gudub hadalka maxaad ku soo gabagabeynaysaa niyo war dhageysanayo dad baa wuxuu fiiriyaa dad baa history leh fiiri ka soo qaatada qamaan bulxan oo kale Ali Dhuux oo kale Ismaaciil Miro kale Sayidko kale Axmed Gurey oo kale ayaga ma qabaan historigaas oo kale ma qabaan maanta dhan waxay ku soo qaadanayaan waxay ku leeyihiin warniyo eedadayna way daawanaysaa aad baan u salaamaya war waxay ku leeyihiin SNM iyo Muuse Biixi iyo Siiraanyo iyo Balaayo iyo af Soomaali waxaas kama dhamaanayaan adeer dad baa history leh oo wadanka iska leh oo af Soomaaliga iska leh oo wax kasta iska leh kuma faanaan adeer fiir aan wax ku sheego niyo Kaysaro adna marmar waan ka yaababa adna niyo nin arwaan kuuga waa kula yaabo sababtoo marmar madaxa igu xanuuniyo naga yaabaysta adigoo sidaa u hadlayo oo jileec dhalay dhulbahanti sheeganaysaa niyaw dad macnaha ha sheeganin dhulbahante raxan weyn iyo dadka sheego ma garad marka aad meelahan oo kale ka hadlaysaan sidaana u hadlaysaan han xareebaynina inaad dadka oo macnaha ha ku ciyaarina magaca iyo karaamada dhulbahanta sidaa uma hadlo umana hadli karo adeer ma garad ma ede warniyo markii wax lagu sheegay inaa wax fahantaa fiican dadkiina cay iyo Balaayo junior ah macnaha ka gudub kalmadaada u dambeysaan ku weydiinayna waxa weeye sidee u aragtaa Muuse Biixi inuu timajaro isku bedelay war Muuse Biixi waa nin waalan waa kii hadda kula hadlayo kale oo ku dhahay intuu ku soo qaata macnaha xadiis oo man tashabbaha qawman fahuwa minhu kuda adeer adna waxaa tiri fooda iyo waxaa tiri dastuurka qofka macnaha qor adeer dastuurka ka sii xun dastuurka haddii diiniyan loo fiiriyo qofka dastuurka soo qoray dee diintuba ka baxaya qofka ku dhaqmayna saas oo kale Muuse Biixi haddii dastuur loo soo qoro uu ku dhaqmo oo macnaha uu leeyahay waa dastuur Somaliland adeer asaga islaamnimada qarka kaga taagan inuu food jaraba iska dhaafay hataa inuu maahan waxa soo kale macnaha oo ku soo saqajaama markaan waxaan ku dhihi lahaa niyo ummadaas oo hiilinaysa markasta Somaliland waa leedahay macnaha markay kula hadlaan baa hadalka u jilcinayso dadka kalena ku adkeynayso waa inaad ka daasaan waa in macnaha meesha ka noqotaa mediator oo dadkan xalxaad u noqotaa ama waa in macnaha sheegataayo macnaha dhahdaa boqolaal baa aragno hadda oo dhulbaanto calanka Somaliland intay gacmaha ku soo xirteen aan ka jarno warniyo waxaan ha sheegan nacala aabin ku yaale waxaan iska jaraan ku dhahay marka niyo waxaan ku sheegay adna sidoo kale inaad taa u maleynayno waa food deertay sida ayagoo kale ina adeer waxaan ku leeyahay Somaliland maxaa kaaga yaacsan macnaha Somaliland waxa kaaga yaacsan maxay tahay oo aad ugu ataagaysid Soomaaliya oo dhan maad wax ka sheegtid oo Soomaaliya oo dhan baa dhib ka jira Somaliland la dhahma jiro Somaliland ka hadlaysa maxay wax Somaliland la dhahma jiro ummadda dhan waa Soomaali hadda Soomaali ku midoobaysa hadda dadkii dafiraysid oo dad macnaha jira dafiraysid Soomaaliya isu imaanaysa waatee macnaha midoobaysa ee wanaagsan hadda Somaliland aqoonsan Soomaali galbeed aqoonsan
soomaalida NFP aqoonsan Djibouti aqoonsan soomaalida koonfureed aqoonsan soomaalida waqooyi aqoonsan soomaalida isu imaanaysa bal noo sheeg macnaha hadaad caytantid oo aad Somaliland caydid soomaalida doonaysid bal noo sheeg soomaalida warniyo ma jiro waxa la dhahniyo Soomaali NFD waxa la jiro waxa la dhah ma jiro niyo Soomaali waa Soomaali Soomaaliyo dhanna waxa madaxweyne u ah mudane madaxweyne Farmaajo marka waxyaalahan macnaha Soomaali waqooyi iyo koonfur iyo Somaliland adeer waxa ka bax Farmaajo xagu haystaadeen Cabdi Qaybiid buu xiri kari la yahay Cabdi Shukuur Cabdiraxmaan Cabdi Shukuur buu xiri kari la yahay Farmaajo runta sheeg xagu haysta adeer madaxweyne u yahay adeer waxa iska daayiniyo Farmaajo taageer oo waxa sameeysa Farmaajo taageer oo ummadda u dhimriyo wax u sheego dawladdiina iyo taageer ku dhay waxyaalahan kale meelaha ala warwareegaysa ka daaniyo ummadda ummadda Soomaaliya anaga doonayna in la isu keeno waxa tiri Soomaaliya Farmaajo Soomaaliya oo dhan buu madaxweyne u yahay adeer Farmaajo khaatuma ma aqoonsana Somaliland kama taliyo wuxuu noo sheegay adeer Farmaajo ma jiro waa ku salaamayna adeer ma garat markuu khaatuma aqoonsaday Daraawiid aan anagu oranayna waa madaxweyne wanaagsan warniyo laakiin inta ku horeysa waa nin macnaha hawiye madaxweyne waa adeer ma garat war waxa adaa lagu dhahay dhigeyso qaatuma uu aqoonsan waayo maanta hadaa dhahdin qaatuma hadaa dhahdo waxa tahay hadalkaaga jilicsan dhageysan mayna naga tagaadeero daanyeer ku dhaay hadal jilicsan naga soo aadi